marka macnaha madka u fiirsato waad yaabaysaa dadka Soomaalidu heerka ay ka gaareen isku khaladka labada istilaaxa ma labada cilmi dawladnimada iyo xukuumadda meel heerka ka gaadhay tusaalayaashooda wax dhamaanaya maaha macnaha waxa la gaaray oo oran karna heerka la gaaray ah in shakhsiga marka talada haya oo xukuumadda madaxda ka ah in loo nisbeeyo oo loo tiiriyo wax allaala wixii dalku lahaa qof waxaad arkaysaa laga yaab iskuulka u dhiganayay inuu buugtii iyo sabuuradii iyo ka qaato fujisto oo moodayo inuu ninkaas tagay lahaa marka macnaha tusaalayaashaas wax la soo koobi kara maaha marka dhibaato weyn baa dadka qabsatay marka waxaan isleeyahay hadii wacyiga dadku uu ahaan lahaa mid gaarsiisan heer in la kala saaro dawladdu waa waxaan tagayn oo ma guuraan oo dadku ka dhaxeeya xukuumaduna waa talis markaa jira way fiicnaan kartaa way xumaan kartaa dimuqraadiyad bay ahaan kartaa waxay ahaan kartaa kaligii talis regime noocaas oo kala ah laakiin wixii waqti qaataaba way iska tagayaan marka runtii markaad fiiriso aad iyo aad bay muhiim u tahay in dadku ay kala saaraan oo dawladnimadana sideeda u qaataan xukuumadana ay sideeda u qaataan oo haday xukuumadda dadku fahmi waayaan inaysan dawladnimada dhaawicin baaran lahaa wad maasanta Cabdullaahi adiga waqti ka madax galay طبعا dawladnimada marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa waxa asal ah wada lahaanshiyo dadka inay wadeeshaan dawladnimadaas anaga Soomaaliya taariikhdeena waxa kamid ah dadka xiriirada aan qaadnay 1960kii xiriirka qof kasto Soomaaliyeed meesha doonayga Soomaaliyeed ka joogay inuu qofkiisa ka walaalkiisa Soomaaliyeed kale uu wax la sameeyo ama ha noqoto labadii gobol marka dawladnimada sameeyay waqooyi koonfuraha xiriirka isu qabeen macnaha aad buu sirray saadaraadii dawladda 60 kana samaysatay waxa salligu ahaa matiirka dhaxaad uu ahaa wada lahaanshiyo وحتى سياسيين أبوجي ماشي وقوي كي بعدين شروط بدل ما يسوون الدولة كيف ما فتقي بعدين أنا واحد صح أباحنا تام أنا وحيد ريمين دولة تسمى دون توقف كي دون الصومالي ما ضحك النقدين إن الدولة دولتها نعم بس وحقول أنا صارت كينيس كويس عشان كل حد قف كي سكول كل دقني أما إسبيتال كل جود ويقول إيش دي بنو جيستو أما هدوس عن سكني بجيسني حتى ذكي طلع حتى واحد بجيسني صوح بك علين وأوران وروحنا نجاس كله كله إحنا وصورنا إنه ضرنا سلام بركة سكول كل دقني دولة ده بركة جلتها إذا ما له جامين كعانكي الحين محمد سيابة على محل الصوب هنا كها إنه أركب إنه دولة أسجيه ساد رادد واحد أساك خاص شقيق لما تودنا بأسجي ليه مركة dadka cilmiga bulshada waxay yiraahdaan bulshada shayga markii wada lahaanshiyo ee ka dareemaan way wada xafitaan way ilashadaan markii waxa wada lahaanshiyaha laga qaado ama qof uu isxijiyo waana mid la yiraahdo ninka soo kaligiis taliya 10 sano ama 15 sano ugu horeeyay dawladdaas halkaas bay gelisay wax qabadkeeda horumarkeeda adeega bulshada wax la qaas karama laakiin muddo kadib xarkiisa wuxuu sameeyay dib u soconaya وسي قراني أنا مركو دم مسؤول تجمعش قدام بيسي أو كرسي جيسي أما أقل جيسي أما ترى أقل كل ترى لو قلت لي لو وصقل صدق أسبابها مدة الصومال لقي أبا ذات كمركو هو كستي أنا كسر عدالي عليه جهل بيجري ودول لماذا مع عندك اللي فهم سيني ودول دي مركا ترى هيستني فهمتي معناهم قالها كعانك صار شنتي صار وسيريز قالها كعانك الدول دول كيسي معناها الدول معناها الشخصيات إليهم طبعا أيها السياسة كنيجي موجي دول معناها السياسة ما بكم مجويني هو عارف عند السكير السوق وقت الأصيل سيد الرادي وحنقصه أنا قصة لابد وحن رنها أنت أنا كبحن ومدى الصومال وإني فهمان نظام المركز جرا أما حكومة في أنت جبته ما أنت أنت جبته حتى وحكي خال دمان إني سنقول الأفجب اللي صح أم إني سنقول اللي كيه وقت الأصيل لكن أستاذ أنا سويديني محا مركه هرك يعني dadku isku khaldaan oo kala garan waayeen maxaa u sababa la oran kara sababay keenaysaa midda koobaad asalka bulshada wax wada lahaanshiyaha manhajka waxbarashada lagu bartaa okay marka waan iskuulkii laga soo dhisto oo primary-ga iyo secondary ku soo dhigto walaalka diris wana xaq doorta qofka markuu degmadan joogo
وعلى بدأ دقمنا وحيت هاي دقمنا الخيرات كلا ده دقمنا وحلا ده دقمنا تاريخ ده waxa dadka ka dhaxeeya oo la wada leeyahay wax la kala leeyahay هذا أسوق قف كأنه ليه معناها يقول أسوق دقيقة هو يسأبيس إليهن والدولة ده خاصة وجيس ولا قدر الحاشية يقول لي إن معناها قرب كليهن لكن ذلك كلا إليه لكن الحاشية يقول إليه وصل أول وضل الأحبرتمان توفي اللي كده معنا وصيحنا ودانا أسكال معنا ما دام صوته ودانا برست هذاك أسكال بس هو حاول وذا ليه هي وأنت تذكر وصل برا منهجك وحبر الشدة موقفك أساسي lagu soo tarbiyeey dhallaanka aad leedahay وصل بالله لا تذكر وحياة كل يمين كأمد الوعي ولا يقدر يتذكر الحاشية حكي بدل برنامج الرواية ده فنك شيكوينك الملا أولك قفك الوصول لسه قفك كدب إيمانية أصور درس قفك هذه كلام تدون هذا الحين إنه حليه برضه كوميدي الثاني إنه يدلو ما في جنبيو معنا ظلميو تاسع مع ناس وحلاس بقى كمية حلال يرين عبد المجيد عقوة waxaan isleeyahay qodobka waxa la raacin karaa waa xogaa aan ka fikiriyay hadda inta hadal ku jirtay marba marka ka dambaysa dadku aqoonta ay yeelanayaan way badanaysaa ilbaxnimadana sidoo kale ilbaxnimada aqoontii la socotaa taa haddii aanu isla qirno macnaheedu waxaa weeye xilliba xilliguu ka dambeeyo waa aqoonta iyo ilbaxnimadu ay ka badantay laakiin waxaa moodaa bulshada Soomaaliyeed si taa ka duwan oo khilaafsan inuu u shaqeynayaan waad isleedahayba garashadu iyo ilbaxnimadu ama garashada iyo ilbaxnimada waxayba xoog badnayd oo wanaagsaneyd baba markii ay ka horeysay tusaale ahaan 69kii 15kii January عفوا 15 أكتوبر وحال الدليل مدحوينه دلك عبد الشيد علي شرمعك إلهي ونحرست نعم marka noocaas oo kala ah waa marka wadanka madaxweynihiisa in la dilo waa hawl yar ma aha waa hawl aad u weyn saameynteeda 15kii bisha markii arintaas u dhacday 22kii bishana waxa wadanka inqilaab ama afgembi military ku qabsaday ama afgembi ciidan military kaliya ma ahayn oo ciidanku military iyo police way lahaayeen askartii markaa joogtay oo uu hogaaminayay madaxweyne maxamed Siyaad Barre ayaa wadanka markaa waxay ku qabsadeen inqilaab ama afgembi usandii ku daadan waxa u dhaxaysa marka labadaas dhacdo 6 maalmood 6 maalmood baa wadanku wuxuu ahaa madaxweyne la'aan رئيسul wasaarihii wadanka markaas maxamed xaaji ibraahim cigaal marka falka dilka uu dhacayo isoo wadanka ma joogin saas oo ay tahay hawshii waxa sii waday shaqaalihii rayidka ah ee dawladda wax walbana sidooda ahay billaqa ma dhicin wax ma aragtay la boobay maysan jirin dalka oo sidiisii ah ayaa xukuumaddii dambe ee ciidanku ay hogaaminayeen ay sidii ku qabsatay marka wacyi ahaan waxaas leedahayba dadku 91dii markii dambe oo xukuumaddu ay meesha ka baxday oo asaa sheegaysaan wax kasta la boobay oo la billaqaystay malaha wacyi ahaan isma oran kara markaas saala ها aqoon ahaan adaa ku watay ustaad aqoon ahaan marka 91kii dadka aqoon badnaa jaamacadaha dalka laga furay iskuulaad badan baa jiray dadku wax fara badan bay barteen afkii Soomaaliga la qoro la akhrinayay sadexgal dunida oo dhan baa la tagay laakiin 1969 ama 69kii 1969kii wax dugsi sare ka baxay dadku way yaraayeen jaamacad urkeeda badaa marka waxaad moodaa xilliga dadku inay ka wacyi ahaan ka sareeyeen marka waxaan moodaynaa abwaanada iyo wacyiga guud baa wuxuu ahaa wacyi si fiican u kobcay xilliga u kobcsanaa oo dadku ay kala garanayeen dawladnimada laana dawladnimadii marka xukuumad ma jirin xukuumadii macnaha way burburtay heerkii baa la dilay madaxii baa la dilay
xukuumad la'aan dalku isagoo ayuu haddana dhisnaa oo waxa dal dhisan oo xuduudiisii iyo dadkiisii iyo ciidankiisii wixii dhan diyaarsan baad moodaa sidaa daraaddeed hadda laftigeeda maalin laga aqoon-yahan badan yahay ma jirto ama aqoontu ay ka badan tahay maysan jirin maanta jaamacadaha waxaa looga baxaa sidii dugsiyada sare darajooyinka kala sarreeya ee heerka waxbarashadaana dee heer aan soomaalidu aysan macnaha qaadan buu noqdo ma jirto laakiin haddana waxaa moodaa weli wacyigii inuu aada u hooseeyo qof aqoon-yahana oo laga yaabo shahaadada ugu sarreysay ee waxbarasho laga gaaro haysta waxaad arkaysaa u dhaqmaya sidii qofkii suuqa caadigaa joogay ama marfashka joogay dhaqankiisii oo kale leh waad arkaysaa mana wacyigiisii isma bedelin qofkii aqoon buu yeeshay waa doctor waa professor laakiin waxaa la rabay aqoontu inay la socoto ilbaxnimo iyo wacyi يا ركت دير تصل تسمى محمد هذا كوتي waxaan ku dari lahaa طبعا waxaa la yiraahdaa cilmada bulshada waxay yiraahdaan aadanuhu waa wax ka xoog baan malaha qofka aadanaha gaaraan dareemsan mabda qofku wuxuu baara mabda uu aaminsan yahay qofka aadanaha waxaa la yiraahdaa buuraxda uu jiraya hadda anaga kuma si dharaanayde kooxaan hadda dalka jiro kale waxay sameynaa kale qofku waa uu ku soo qancaya sidoo kale cilmada bulshada waxay yiraahdaan aadanuhu markii nidaamku ka hoos shaqeynayo waxay yiraahdaan nidaamkaas wuxuu baraa kala sarreynta iyo kala hooseynta iyo aqbalaada iyo wada lahaanshaha iyo qofka qof dulmiyo dadku waxaa lahaa qofka bini aadamka markuu wax iswaayo sababtoo dadku waa labo qof bini aadamnimadiisa iyo ama diin u aaminsan yahay kugu nabadgelinayo kugu dhaafayo iyo qof nidaam jira markaas ka cabsoonay in la soo qabto boolis ay soo qabtaan kolo xabsi la geeyo maxkamad ka cabsoonay marka waxaa la yidhahdaa bini aadamka inta badan wuxuu u badan yahay dadka ka cabsooda nidaamka meesha ka jira xaqiiqatan macnaha marka cilmiga bulshada aad u horiso dowladaha dalka galbeedka aragtay maanta waxay ku dhisan yihiin ka sokow shacabkooda in wacyigooda sarreeya ka sokow maanta dowladahaas haddii balbaraan in xabad bay soo qaadanayaan fikirna way kala tegeen waxaa tusaale kugu filan Ukraine hadii marka hadda qallaasa ay ka dhaceen oo goboladan bariga xiga Ruushka ogeed waddanka ka tirsan bay xabad u qaatay ilaa hadda macna ilaa ay ku dhawaaqay goonigoos macna inay ka gaaraan tada kale markooda maxay u diiday markooda waxay u diiday inay dareemayaan lahaansho markii dama kacdaanku u dhacay waxay dareemeen dad reer galbeedka xagga NATO inay inay qabseen taas tusaale waa soo qaatay marka aniga waxay la tahay ma aan ujeedada shahaadooyin badan ama sare la qaato ujeedadu waxay tahay ummadda Soomaaliyeed u baahan adduunka ku beerjiyo waxay tahay danta caamka ah qofka inuusan u barin shahaadada inuu wasiir ku noqdo ama xildhibaan ku noqdo ku barto ama uu shaqo ku helo badan naftiisu inuu xoog bedelo hadafkana ma ahan meeq imtixaamaad ku baastay ma hadda macna halbeeg wuxuu noqday qofka meeq imtixaam ku baas meeq shahaado qaatay hadafku wuxuu ahaa qofkan imisa buug buu akhriyay imisa imtixaan buu galuu fahmay qofku waxaa laga yaabaa inuu 3 BD qaatay 2 master hayso 5 degree hayso duulimaanka sidoo kale shahaadada qofku iska daa ama certificate afqaladi ku dhahan laakiin qofku wuxuu ma fahmayaba wuu akhrinaya wuu ka baxaya imtixaanku galaya wuu dhameynaya wuu ka baxaya marka waxay la tahay waxaa jira qofkan waxa uu ma galayo intifaac wadadku anfacay uu galaya qof iska dhicin in xilkaas wuxuu kugu dhaafay mustaqbalka shahaada la'aan taas aan ku gudbiya hadaa ka yar waa adiga iga dambeyn doona mawduuca marka dawladda ka sheekeen waxa saldhig u ah dawladnimada oo dadka isku haya waxa ka mid dastuur dastuurka waa eray afariba constitution xataa laatiin xataa ingiriiska waa eray kala mid ah constitution ingiriiska maahan laatiin waxa lagu sheegay asliisuliya dastuurka marka dawladda laga hadlayo waa shay muhiim sababtoo dastuurka wuxuu sameeyaa ama qaabeeyaa dawladda aan ka sheekaynin oo ka kooban fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoor ka kooban qaabka u ekaanayaan mid boqortooyo hal qof talada leeyahay ma mid koox ay maamulaan oo koox nidaamka eerarka duniya kalimiya ma boqortooyo macnaa family ku xiran tahay min ciidamada kooxa maamulan min nidaam dimuqraadi rayida dadka taas soo dooranaya maamulan dastuurka marka wax kale ma dastuurka waxa lagu qeexay inuu yahay heshiis bulsho lagu qoray mabaadi iyo xeerar la doonayo dawladdaas lagu wada heshiiyey inay ku socoto wadada sax u qaado
dowladda marka inta baan oo aragtay afgabida marka dhacaan kow waxa wax ka qabta waxa kamid ah dastuurka bedelaan sababta wuxuu doonayaa heshiis lagu wada ka wacdo soo waxa kooda sameeyay wuxuu laalay dastuurka lagu heshiiyay kadib cusub uu qorayaa aragtay cusub uu keenaya fikrad cusub uu keenaya nidaamka lagu sameeyaa dastuurkaas uu raabato umada ku dhaqo marka dowladda waxa asal ah hatta kaas xitaa wadanka qabsadaya xitaa wuxuu ku qasbiyaa dastuurka qorto xitaa dastuur sameeyo ma arkaysid nin maanta tala dalhayo oo kula bilaa dastuurka marka dastuurka waa qodob muhiim ah cabdimjiidow haddaynu garanay farqiga u dhaxeeya dawlad iyo xukuumad oo si fiican u qeexnay waxay noo dhiman dawladdii maadaama ay ka kooban tahay dhowr cunsur ama dhowr qaybood qaybta ugu muhiimsan ay tahay dadka dadkaasi maxay tahay xuquuqda ay ku leeyihiin dalka maxayse ka sugayaan inay u qabato xukuumaddu waa in la isweydiiyo moogtahay xukuumaddu waa dad mas'uul ka ah inay dalkii maamulaan oo hogaamiyaan dadkaas waxay noqonayaan dad aqoon leh karti leh garasho leh xilkasa waajibkooda yaqaana mas'uul ah waajib baa saaran marka dadkaasi inta badan dadka Soomaalida marka fiiriso waxaad arkaysaa xukuumad kasta in aad looga cawdo marka waxaan isweydiin karnaa waxyaalaha isweydiin karnaa waxa kamid ah ama dad badan oo Soomaali isweydiinayaan maxay dadku ka sugayaan xukuumadda inay qabato xukuumadda inay qoodiso afka bariis ugu gortaa maxay tahay inay isweydiino weeye maxay marka kula tahay marka fiiriso Abdullahi waa su'aal aad u muhiimsan tabcan bulshada u baahan yihiin wax badan ka ogaadaan saad sheegtay shacabka waa tiirarka kamid ugu muhiimsan dowladda ka koobanta ama lagu dhisaba saad raadad shacabka waxa lagu leeyahay waajibaad waajib baa lagu leeyahay dowladda kula dadkiisa kula asagana dowladdiisa xuquuq buu ku yeelanaya waajibaadka qofka dalkiisa ku yeelanaya waxaa kamid ah in qofka aad wixii dalkiisa ama dowladdaas uga baahan tahay nidaamka jiro wixii looga baahay inuu si sax u guto hadduu dhaqaale leeyahay oo inuu cashuurta bixiyaa oo inuu nadaafadda ka qayb qaataa hadduu arko wax khatar ama dhibaato waddan ku ah waa inuu hay'adaha ammaanka iyo ciidamada ku shaqeeya booliska soo wargeliyaan haddii uu arko qof kaalmo u baahan adiga oo arko qof macnaa dadkiisa kamid oo dhibaataysan waa inuu kaalmeeyaa dowladnimadu marka waxaa waaye xal baan u badan wada qabsi waa mas-uuliyad wadareed marka waajibaadkaas asaga uu leeyahay uu guto baa kadib qofku wuxuu yeelanayaa dowladdiisa xuquuq buu ku yeelanayaa kuma si dheeraanayo xuquuqda waxaa kamid ah adeeg bulshada la siiyo caafimaad waxbarasho wado kadib adeega socdaalka baasaboorka dukumeentiga marka waddan shay tagana safaaradda waddankaas waxaa loo geeyay waxaa kamid ah asaga macnaha inay u noqoto meel waab ku waqti macnaha u noqoto dugaal meel u gala macnaha u noqoto markuu cadow ama shay macnaha dib u geysanayaan inaas baa ku soo koobi maxamed anigu tusaalan ku bixin lahaa waxa looga baahan yahay qofka muwaadinka maaragtay dalkiisa wuxuu uga baahan yahay asaga waxa laga rabo Soomaalidu waxaad moodaa si inay u laba wajiileeyaan marka ay dalka joogaan iyo marka ay ka soo baxaan marka ay dalka joogaan waxaad moodaa waxoodu inay isku haleyn iyo ku fiirsasho iyo waxaad moodidba in maaragtay cid ku xumeynayaan inay nidaamka dowladnimada ula dhaqmaan laakiin marka ay banaanka u baxaan oo ay wadamada ugu soo horeeyay dariska ay tagaan waxaa dhacda inta badan inay ilaaliyaan nidaamka markaa waddanka ka jira oo canshuurtii ay bixiyaan ama cabsi ha ka keento ama si kaleba ha loo dhigo canshuurtii ay bixiyaan maaragtay adeegii bulshada ee dowladda ay ka rabeen ay maaragtay si caadi uga raadsadaan ayaguna wixii markaa laga rabay ee kale in nabadgelyada dhowraan baa kamid ah in canshuurta bixiyaan baa kamid ah in waxaasoo dhan inay sameeyaan way dhacdaa markay banaanka u baxaan oo dalalka kale dhexdooda ay joogaan oo ajnabiga ah marka waxaan oran lahaa sida aad u dhaqantaan markaad banaanka u baxdaan ama dalalka dibadda aad tagtaan dalkiina ugu dhaqma markaad gudaha joogtaan haddii aad dalalka aragteen ama aad ku soo dhaqanteen waxaaba loo baahan yahay khibradii iyo waayo-aragnimada aad ka kasbateen halkaas inaad dalka geysaan waa loo baahan yahay marka waxaan isleeyahay laba wajiileynta in la iska daayo ayaa
كفيعا sida hadda aynu dhaqmayno aad iyo aad baa u mahadsantahay mudane maxamed barnaamijkeeni galabta oo ku saabsanaa farqiga u dhaxeeya maxay tahay dawladii ama farqiga u dhaxeeya dawlad iyo xukuumad oo aan ku faaqideynay qaab dood wadaaga intaas ayuu noogu eegyahay